halkii siyaad barran inaga amaanta ku jira dee dhaqanka ha noqdo midkii bedela intaasaan leeyahay. bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. halkani waa alxaqiiqa. faallada barnaamijkeennu maanta wuxuu noqonayaa nimaanu saaxiibna ilmaadirnanahay oo caaqil ah oo siyaad barre nagu matelay inaan wax ka idhaahdo oon hadalkiisa isdul taago. kaasuu barnaamijkeennu khuseeya. wuxuu yidhi duq gaboobay iyo wiil yar baa loo dadaa hadale dushaan ka garanayaa xaajada dabaqa saarta. ninkaasi siyaad barre ayuu inagu matelay. waxaanu u jeedaa dowladda muuse bixina siyaad barre yahay, anaguna aanu mareexaan nahay oo inta kale gumaadayno laynayno ama aanu boobayno ama aanu kursiga iyo awoodda ku laynayno. ujeeddadiisu waa nooca, waana meel ka dhac iyo ceeb uu la raadinayo somalilan iyo dowladdeeda iyo magaca uu sheeganayaba. waana ka jawaabaya. waxaan uga jawaabayaa in adeerkay ma aflagaadeynayo mana caayayo oo igama geyo. kelmadowgaga lagaga gar helana ku odhan maayo, laakiin runtaan u sheegayaa oo xadiiskii nebiga iyo diinteenna ee ahayd qaladka ka qabo walaalkaa ayaan maraya. waxaan u marayaa in badan baa hadasho oo waxaa cabdirasaaq ku hadlayo caaqilkaasi iyo wax ka daranba ku hadasha. waxba ka soo qaad ma leh oo ninka xun iyo ninka iska hadlaa reer walba wuu ku jiraa, meel walbana wuu joogaa. cabdirasaaq waxaan ula hadlayaa mar walba magac naga dhexeeyaa buu isticmaalaya oo laga dhex arkaya isagoo haddana waxaan wanaagsanayn ku hadlaya. markaa in loo jawaabo magacii baan u jawaabaya naga dhexeeyey iyo sawirka la arkaya ee halkaa laga arkaya uu bixinaya ninkaas iyo signalka ayaan ka jawaabaya. waxaana badbaadinayaa malaayinka qof ee dhegaysanaya ee wax moodaya hadalkiisa run moodaya ee magacaa uu sita eeganaya. maaha markii koowaad ee cabdirasaaq uu hadalla dhacdhaca uu iska yidhaahdo. way bateen, ciidday ka bateen. waxaa ku kalifayaana maaha nin qabiil u danaynaya, maaha nin qaran u danaynaya, maaha nin naftiisa u danaynaya. waxaa ka hadlinayaana waa dad shaksiya iyo hungurigu. waanaan caddaynaya. waxaan ku caddaynayaa cabdirasaaq raggii dowladii hore wax la soo cuni jiray madaxtooyada geli jiray buu ahaa. annagu dad reerka iyagu ma ahaan kuwii dowladda wax ka cuni jiray. qof iyo laba madaxtooyaha naga tegi jiray wax ka soo qaadi jiray, kuwaasuu ka mid ahaa. kuway danta u tahay xoolaha ummadda in la handaraabo koowaad baanu nahay, because waxba kumaanaan qabin. kuwa inay duceeyaan ay ahayd baanu nahay, waxba kumaanaan qabinoo kuwa waddanka boobay maanaan ahayn. meel aan u marraba maanu hayn. inaanu ilaahay u mahadnaqno kol haddii wixii naga dhexeeyey maanta bangiyada ay ka buuxaan ayaanu annagu xaq u lahayn. ninka ooyaya waa ninkii meelaha geli jiray wax ka soo qaadi jiray. afartii qof ee meeshaa tegi jiray buu cabdirasaaq ku jiraa. dowladda muuse biixi maanta markuu musharaxa ahaa waanu u wada ololaynoo raggii u ololeynayay dhisayay buu ka mid ahaa. kumuu dhisayn danuu ka dhex arkay muuse biixi. kumuu dhisayn mid qaran iyo mid qabiil toona. shaksigiisa mid aha buu ku dhisayey. waxaana u markhaatiyaa markii uu guulaystay musharaxiisii 6 bilood iyadoon gaadhin buu haddana buurta gacan libaax furay markii handaraab ku dhacay ee ummad joodhan laga handaraabay. handaraabkaa dhacay kuwii xigay buu ku dhacay. 500 iyo samti qof bay ahaayeen dadka mushaarka ka qaadan jiray madaxtooyada ee laga joojiyey. 500 iyo samti ka ugu yaray 1500 dollar u qaadanayay. 2500 oo gaamiyo dhaqameed u badan. 1 milyan samti baa bisha ka baxayay. wax xog aan hayo rasmi ah. waxaan nagaga soo hagayay 2 qof bay ahaayeen. marka kuwa haddii alla kuu roon yahay wax ku qabay maanaan hayn. 6 bilood iyadoo madaxweynahaas maanta uu guulaystay u dhisayay isagoo aanu haysan buu buurta fulu warqaddii dagaalka ahayd iyo hanjabaadda ahayd qodobada laga soo qorayey dowladnimada ka hor imanaya kuwii soo akhriyay buu ka mid ahaa. taas waxay caddayn u tahay inaanu mabda' kula socon. cabdirasaaq qabiilka kuwa kula socday waddani ee dhacay ama qabyaaladda kula socday ama mabda'a kula socday ama lacagta kula socday
ee dhacaya buuraha fuulay baa ka wanaagsanaa isaga because wuxuu dhisay oo aan sanad gaadhin buu ka hor yimi sababtu uga hor yimina waa handaraab wax kale maaha wax kaluu sheegi karaa ma jiro dani iyo ina cagshar oo markaasun la doortay oo midna aanu aqoon ayuu intuu af mikrofon qaatay yidhi labadii nin ee soomaali madaxda soomaalida ugu wanaagsan waa labadaa war goormay wanaagsanaadeen madaa yaqaanba waabay cusub yihiin waa hadallada aan loo meel dayin oo ninkaas iska odhanayay cabdirasaaq ninka dhalay baa caaqil ahaa oo caaqilnimada kala wareegay ilahay naxariistiisa ka waraabiyo adeerkay maxamed askar ah oo caaqil da'weyn ahaa oo taariikh leh laba sano ma uu haysan cabdirasaaq caaqilnimada markuu carto tagay uu damcay ummaddaa dhan iyo qarankaa dhan inuu inankaa yari soomaaliya ku subo waa taarikh dhacdo ma been kama samaynayo waxa taa dheer soomaaliya iyo somalilan baa la ha wada hadlaan dowladdan imika joogta oo la karkariyey mikrofoonka intuu qaatay buu yidhi anigaa xaq uloo isu keenaya labada dowladood ka hadlayo hogaamiye dhaqameedkiya cajab ilaahayaa buu noo keenay waa ninkii shalay carta ka yimi ee taladiisii xumayd ilaa maanta ina haysato ee raxaweyno baydhaba joogta iyo haddii alla kuu rooyey iyo maxayday iyo bahaydayn iyo bahashi joogta baye bakool joogta oo labada magaalo leeyihin aad arkayso barhkooda naga dhigay ee soo qaatay intaa haddana waxa taa ka daran halkuu gaadhay iyo halkuu ka hadlay siyaasaddu la gashay qof gaadhay ma jiro tiraba laba goor oo marna burcaa marna hargeysa buu ninkaasi yidhi guurkii uu fargeliyey oo uu guurkii siyaasad ka doonay raadiyey oo uu yidhi ilaa carmalka gabiile aanu guursano kursi fuuli mayno haddaanu garxajnay nin baa habar jeclaysaa buu yidhi yacni meeluhu wax gaadhay ninkaasi wax ka dayayo meelo dhaqankeenu inoo saamaxayaba ma ahayn ama lagu kaftami kara xitaa isagay dhaleen aabbihii bay dhaleen war guurkii buu khalkhal geliyey dadka walaalaha ka dhexeeyey ee wada dhashay ninkaas halkay baashu ka gaadhay oo uu yidhi nin reer sheekh saxaaqoo bari ka yimi ayaa kuwii aniga iyo aabbahayba dhalay iga warramaya doqoniimo ka weyni iyo ayaan darro ka weyni iyo ceeb ka weyni ma jirto wuxuu iska dhigaya markaa nin garxajis kursi u raadinaya maalintii muuse bixi tirtamay muuse bixi la socdayna ciidagalaya habri isba way tirtamayeen musharax bay ahay qabyaalid ma hayn oo run ma sheegaya taana miyana ceeb hayn ninka guurkii geliyey laaxinka geliyey ee ka dhigay siyaasad allahuma najina ilahu halkaa naga gaadhsiin foofku aanu nala gelin maanta wuxuu yidhi halkii siyaad barroom taagan isaga oo qaranka iyo madaxweynaha iyo reerka intaba meel kaga dhacaya war xaggee dadkaanu layna ku jiraan managa madaxtooyadiisaba geli karna kii u xigay sudaanka wahaaba geli waaye maxay ku qabaan habar wal magac iyo cay bay ku qabaan iyo madaxweynuhu ayaga ah wax alla waxay ku qabaan ma jirto handaraabkaa ku dhacay waddankuna wuu ku wada dhacay cid walba waa kaa suldaankiisii tiboodka ahee kolle meel isku qaadaya kolle sacuudiga isku qaadaya kolle buuraha holaha xargagan gelaya waxaan ku leeyahay cabdirasaaqow in adeerow looma dulqaadan karo waxaad ku hadlayso adiga iyo ragga kale waxaa idinka yeedhsiinayaan waa xirsi iyo buurmadow anigu waan ogi cabdiraxmaan ciro shar iyo khayr toona intu ku fikiro isagu kuma taliyo waxba kuma taliyo dembina malaha waa ninkaa isaga la hogaaminaya isagii baa u baahan gurmadkii in laga furfuro reerkaa habar yoonis la yidhaha shalay tolo ninkii garaadkaa hadlayey u lahaa waa la gumaystaa taariikhda meel habar yoonis lagu gumaysto maanaan maqal mana hayno lagu gumaystay waa reer ballaadhan oo hindiya oo reer shaqsaxa ka dhex muuqda oo cid ka deegaan badan iyo cid ka fara badan aana jirin markii dowlad la-aanta lagu jiray ee casru jaahiliga ahaana taariikhdooda waa la yaqaano cidma gumaysan maanta oo dowlad la yahayna cid kaga badan ma jirto dowladda baarlamanka somaliland marka saa afrij lagu qaybiyo ayagaa ugu badan marka reeraan la dhigay garxas baa iskaga tago taliyayaasha ciidamadu waa iyaga kaa maanta 150 gaari ku haysta laascaanood dul taaganee generaalkii waa in axmed tir ka kale ka sii sarreeya waa dabagale waa iyaga waxaan leeyahay
beenta la faafinayo iyo meelka dhaca iyo gunnimada la samaynayo ee aan reerkaasi qabin ee annaga iyo ayagaba la iskaayo daba dhigayo nama qabato waxa samaynayana waa buurmadow iyo xirsi mar walba buurmadow hadlayo reerkooda ma soo harqaado dayru ka yahay wuxuu yidhahdaa waxaan idin hayaa reer garxash la yidhaha kaloo dayacan oo waalan ayuu dhulbahanto ku odhanaya uu farmaajo ku odhanaya uu balaayo walba ku odhanaya uu nimankaa jabhadda sheeganaya uu ku odhanaya ee somaliland ka hor imanaya waana been garxash somaliland buu ka mid yahay ciidan garxash soo hubaysan oo maanta somaliland jooga ama qabiil kale oo somaliland jooga oo cid laga hor jooga ama la maamulaana ma jiro ciidamadu qaranka somaliland waa ciidamada qaranka ma jiro qabiil hubaysan oo maanta reerkiisu leeyahay ciidan buu leeyahay ayagu nala dagaalamaynayo wana la dagaalamay la odhanaya ma jirto khiyaaligan ku jirnay 94 kiiba ku jira maanta 94 kiiba hargeysa anagoo ka dagaalamayna oo markaasuu somaliland ciidankeeda la isugu geeyey aanu odhan jirnay habar walba rustirayna markaan beerisu sheegayno oo cid kale istirimayno marka suuqa anagoo ka dagaalamayna ayaa masallaha dushiisa iyo dumul walba naga dhufto arab naga dhufta dalkooda difaacayna somaliland bay ka mid ahaayeen maalintaasaan xaqiiqsanay in somaliland nala dagaalamayso intii hore maanu xaqiiqsan halkiiba maanta rag maraya oo qaar kale beenu sheegayaan oo leeyahay garxashiidu kuma jiro laascaanoo jooga ee ugu weyn caaw ee ciidamada wata generaalka aba ayaa garxashi habar yunus waxaa leeyahay kuwa loo sheegayana been baa loo sheegaya kuwa sheegayana been bay sheegaya magaca ayagaa la dilaya ee meel walba lagu dilayana waxaa dilaya ragga aan sheegay iyo rag ay masruufaan oo ninkani kow ka yahay ka mid yahay looma dul qaadan karo waanu ka hadlayna kama aamusnaanayno waanu ka hadlayna maanta inuu siyaad barre nagu sheega annaga iyo mid wax ku dulmaya dalka ma aqbalayno ma qaadan karayno shalayna wuu cabanayey oo waa lana gumeeyey bay lahaayeen iyo waa lanaga adkaaday maantana qaar wax gumeeyey buu iska dhigaya marba dhan baa laynaga imanaya oo isagii baa iska dhigaya nin awooddi wax ku gumeynaya oo dowladda caayaya oo dalkii caayaya oo annagana caayaya oo ilaahay dambi ka gelayo oo waxaan jira sheegaya waxaan ku leeyahay adeerow ka waantow oo ilaahay ka baqo oo waxaad afkaaga ka soo baxayaad ku hadlayso intaanad ku hadal ka soo fikir yaan hungurigu kaa xoog badan wuxuu yidhi haddii hungurigu qaado talaa lagu daraa war hunguriga ragga wuu ku wada jiraaye cabdirasaaqow adiga ragga kaleba ilmaada reyaal tala ku dara taariikh baa qormaysa waxaana ku hadlaysaana taarikhda gelaya ma dafiri doontaan walahina waxaa ku hadasheen markaan soo dhigno aad ka ooyi doontaan nin waliba wuxuu ku hadlay waan hayaa rikoorkiisa bilow ilaa dhammaad waa ilmayn doontaan waxa ku hadasheen dan wadda hor keeno weliba waan dulka xaadinaya waxa ragada ka tegi maayee joojiya waxaa wadaan ee nagu wadaan dadka ka hadlaya arrinta laascaanood waxaan leeyahay raggii aynaba ka hadlayey qorlugu ka hadlayey baa wax si fiican u hadlay jira nimankaas nabadna way ku baaqeen dhulkana inay deegaan u yihiin oo deegaankooda la sheegan been laga sheegay oo fariin bay direen cidna may ku gafin waxaan kale hadlayay maatida ah ragga aad moodeen haddana ragga ahayn ee dumar hal la keeno lacagta iyadii loo keeno waanu ka baxayna waxaa ku hadlayo arxishooda isla yaaba oo dhulbaantana fadeexadii ceebta ka daaya dadka kalena fadeexadii ceebta ka daaya somaliland iyo shicibkeeda waxaan leeyahay loo daayo nimankaasi iyaga isku maqanoo nabad iyo colaadka ay keenaan baa lagula soconayaa annaguna kuwii lagu laayay xaaladan oo kale lagu laayay baanu hayn ishaanu ku hayna xeerkii inoo yaallay taa teed baa lagu laayay ka mid baa hayn dhulbaanta ku maalintan leynayay dagaal baa ka dhacay toon 6 goor goobjoog baanu ahaa maalin saddexaadii markii dagaalkii la kala food qaaday ayaanu kayn bariga toomeed ku taalo xaabaale ku taalo meesha kidcaw la yiraahdo aanu ugu tagnay 3 nin oo qoriysto go'doomay oo asqoobay halkaas sonkor ku cunaya jeebka ku sitay nimankii aan waraysan wariyaati nin qura wallahi aanu saaqay Soomaaliland ta kale yahay waxa toonna uu keenay ugu dagaalamayeen qaranka Soomaaliland difaacay kiiwan baa maanta la difaacay ninkay isugu sheekeynay qabiilow iyo reer hebel baa halka joogay reer hebel baa ka reebay reer hebel baa jecel reer hebel baa nacibnayo been baa naftaadu sheegaysa reer hebel sarka meeshan ciidamada Soomaaliland baa sarka saaro dhulbaanta ka buux hal laga daayay baan leenahay nacnacda iyo hadallada meel ka dhaca ee loo aabayeelay ee la iska oranayo arrinta laascaanood wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh نبض
نبضي نقمات يولدي وغالي نبضي وغالي نبضي نقمات يولدي وغشقي المري وغشقي المري إذن كبات يا صوت haddii aan qalooc jirin miyaad qiri lahaydeen haddii aan qalooc jirin miyaad qiri lahaydeen waa qodob su'aale qof waliba siday tahay aan xawqaadole وقدر سؤاله ووالبا سيديك حيان حوقا إليه نبوين يوم لما نباقبين عيسانين عيسى داري